sanad dugsiyeedka 2022 waxa imtixaanka shahaadiga ah u fadhiistay arday tiro badan oo ka soo kala baxay dhammaanba dugsiyada dalka. qaar ka mid ah ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka mid ahaayeen ardayda ka baxday dugsiyada dalka kuwaas oo ku baxay darajooyin aad u sareeya halka dhinaca kale ay kaga jireen difaaca dalka oo ka hor istaagi waayay inay waxbarashadooda sii wataan. taasi waxa ay tusaale u tahay in aanay waxbarashada ka hor istaagi karin shaqo kasta oo aad haysaa. magacaygu saddexan Salmaan Cismaan jaamac ku magac dheer taliye fadhiyo ilaa malcamad quraankaygii ilaa dugsi hoose ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi sare intaas oo janjar waxaan ku soo qaatay degmada Sheekh sanadku waxa 2022 waxaan from 3 waxay u kalifay ciidamada qaranka inaan ku biiro waxaan anaa jeclaysto hobigayga noqotay inaan ka mid noqdo difaaca dalka waxay igu suurta gashay wax caqalada waa ma dhibaatooyin fara badan oo igala kulmay ma jirin waayo waxa ahayd hobigayga ayuu inaan tan barto inaan qaranka difaaco xagana waxaan ka akhrisan jiray habeenkii halkay ardaydu maalintii kaga jiraan galaasada ay wax akhrisanayaan aniga waxa jiray hortay caawimaad fara badan ma helay hadii family noqoto hadii ardaydaas fasalka ahay noqoto iyo hadii ay noqoto asxaabteedii kale ila taageersanayaan ciidanka qaranka ka mid noqdaba garab istaag badan ma helay habeenkii baan district ku jiray difaaca ama ku jiray qorigayga haysta ayna akhrisan jiray wali soo fasaxay markii imtixaanku uu soo bilaabmay bilowgiisa hore waxaana ka mid noqday ardaydii waqtigu saamaxayna galaaskooda ku galaan imtixaan markii aan imtixaan galay maalinta kale markii imtixaan soo dhamaaday bacdeen qalinkiina waan dhigay qorigiina waan qaatay waxaan galay goob dagaal ee difaaca qaranka markii imtixaanka la yeerinay waxaan ku sugnaa goobta difaaca ee furimaha hore joogay halkaas aan ka akhrisanay moolka imtixaanka soo baxay maadooyinka waxa ahaayeen 12 maado laba maado ahaa in laba paper isku saaran 10 maado waxaan keenay A+ hal maadana B-. waxbarashada si wadanaya ilaa heer halka u sariisay aan ka gaariyo aan arkayo hamigayga higsigayga wuxuu ahaa waxbarashada iyo qaranka difaaciisa inaan isku garab wado go'aamiga tahay heer jaamacad marka dhameeyana waxaan doonayaan halkiisa ka askarinimada heerka u sareysay ay gaadhisay ilaa aan noqonayo sarkaal ugu sareeyo saraakiisha ciidanka qaranka waxa jira dhalinyaro fara badan oo wax dhigashadooda ma iskaga tagay oo yiri caqalada naga haysta ama waxa jira dhalinyaro fara badan oo ciidan ku jira wax dhigashadooda fara ka qaaday wana horta in waliba maanta daqalan iyo qoriba rag wasku wada karaa wax caqalada ku qabsanayaan ma jiraan hadii aad naftaada ka dhaadhiciso horumar bad gaaraysaa marka waxaan kula talin lahaa difaaciina qaranka idinko garab taagan qalinkiina iyo qorigiina asxaabtiina kala dagaalama dhammaan dhalinyarada Soomaaliland nafti waxaan halkan iyaga uga sheegayaa wax dhibaato aan caqalada inaan jiri karin hadii wax dhigashadooda iyo qaranka difaaciisa isku garab wadaan waxaan kula talin lahaa qaranka difaaciisa iyo buugiga qaranka inay isku garab wadaan inta noloshooda ka dhacaan ka caajisay aniga way farxad maanta in dhalinyarada iyaga dagaalamayo qalinkiina sida qorigiina adduunka dal kasta waxa difaac dhalinyaradiisa kulli waxa ay keenay inaan farxada aan heer jaamacadeed halkan ka bilaabo lahaa si qoondisto aan halkan digi lahaa ka sii eegto isla hawshaas markay dhimaataan in difaaciga qaranka iyo goobi ciidanka ku sugnaa aan istaago midangeyga go'an wallahi dareenkay wartii inaba inaan caadayn isku bedelay waayo waxaan helay shacab fara badan oo garab taagan oo igala qayb qaadanay maalintii farxadda iyo aniga family ahaan oo farxadii igala qayb qaadanay iyo aniga shakhsi ahaan oo maanta farxadda maalinta dareemay hortii ma ahayn farxadda soo koobi karo